رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبيال مالين wanaagsan meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada waa mar kale iyo Yasmin Yasin channel. haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka naga ilaawin, haddii aad hore noola joogteen like-ta nagu caawi si ay noogu noqoto dhiirigelin. halkan waxaan maanta idinkula wadaagayaa muuqaal ama mowduuc ku saabsan dawooyinka lisku cayiliyo. saala socotaan waayahan dambe waxaa jira dad badan oo isticmaala daawooyinka lisku cayiliyo, rag iyo dumarba. haddaba maxay yihiin khataraha ka imaan kara daawooyinka lisku cayiliyo? dad badan ayaa ka cabanaya daawooyin ay isticmaaleen inay isku cayiliyaan. ugu horeyn waxaan ka hadlaynaa maxay yihiin daawooyinkan waa group la dhaho corticosteroids. khaas ahaan waxay dadku u isticmaalaan daawada dexamethasone oo ay Soomaalidu u taqaano magaciisa kaniinka briiska. haddaba maxay dhakhaatiirtu u isticmaalaan daawada? dhakhaatiirtu waxay u isticmaalaan daawada in ay ku daweeyaan xanuunada sida allergiga, murqa xanuunka, xanuunada kala goysyada lafaha. laakiin dadkeena Soomaalida waxay u isticmaalaan qaab aan loogu talagalin. maxaa laga sameeyaa daawooyinkan waxaa laga sameeyaa hormoon si dabiici ah ugu yaala keliyaha korkooda oo loo yaqaano cortisol, wuxuuna ka qayb qaataa difaaca jirkeena. isaga ayaa laga sameeyaa dheecaanada uu soo daayo kaniinigan. dhibaato noocee ayaa ka dhalan karta marka ay isticmaasho daawadan? waa su-aasha isweydiinayaan dad badan oo daawadan isticmaala. daawooyinkan waxay ka yimaadaan isticmaalka daawooyin si ay isugu waxaan ka wadaa dhibaatooyinkan waxay ka yimaadaan isticmaalka daawooyin aad qofku ugu talagalo inuu ku cayilo, laakiin si daawadaasna asal ahaanteeda looguma talagelin in cayil iyo wax lamida ama qaab noocaas loo isticmaalo. haddaba qofkii markuu daawadii u isticmaalo inuu isku cayiliyo maxaa ku dhici kara? dhibaatooyin ku dhici kara maadaama uu daawo si khaldan u qaatay. midda koowaad waxaan oran karnaa dhibaatada ka dhalan karta inaad isticmaashid daawooyinka corticosteroids adoo rabo inaad isku cayilisid waxaa ka mid ah indho la-aan. qofkii araggiisii baa daciifaya ama araggiisii buu si tartiib u waayayaa. midda labaad caloosha oo ay qofka biyo ka galaan. waxaa murqihii caloosha iyo waxaa jilcaya dhammaan kaydkii caloosha iyo difaacii caloosha oo dhan, iyo waxaa jilcaya gidaaradii caloosha oo dhan. marka qofku waxa u sahlanaysa in calooshiisu ay noqdaan meel u sahlan inay biyuhu galaan. caado wareerka dhanka gabdhaha iyadana sidoo kale way ka dhalan kartaa isticmaalka khaldan ee loo isticmaalo dawooyinkan corticosteroidska, gaar ahaan dadka isku cayiliya. sonkorta oo aad u kacda. qofka markuu corticosteroid isticmaalo inuu isku cayiliyo, sonkorta dhiiggiisa ayaa aad u kacaysa. gabdhaha yaryar, gabdhaha oo gar yeesha sida ragga oo kale, timaha waxay kasoo baxayaan halkan garka oo kale. qofka oo barara, qofkii isku arko barar badan. neefka qofka oo soo booda, qofkii neef baa kusoo boodaysa aan horey loogu ogeyn. wejiga oo sida goobada noqda, qofkii wejiga wuxuu ka yeelanayaa calaamad goobada camal. keliyaha oo qofka fadhiista. midda labaad lafaha oo jajaba, qofkii waxaa ku dhacaya lafihiisa in si tartiib ay usoo jajabaan oo lafa burbur ay ku dhacaan. intaas keliya kuma soo koobi karo, waxaa jira dhibaatooyin kale oo aad u badan. sidoo kale dhibaatooyinkiisa laguma soo koobi karo qoraal iyo muuqaal toonna. waxaa jirta dhibaatooyin badan oo dadka markii la wareysto ay ku sheegayaan dhibaatooyin hor leh. haddaba sidee isaga joojin kartaa ama isaga joojinaysaa? inaad daawadan iska joojisid waa wax aad u muhiim ah, balse qaabka aad isaga joojinaysid ayaa u baahan inaad ka taxadartid. haddii aad rabto inaad hal mar iska joojiso waxaad la kulmaysaa khatar. waxaana la rabaa inaad u joojiso si tartiib ah oo aadan hal mar maadaama waxaan jirkaagii la qabsaday inaad si tartiib u goysid. haddii aad isticmaali jirtay 3 xabo maalintii waa inaad hadda isticmaashaa 1 xabo, kadib xabad jabkeed, kadib aad sida isaga joojisid. haddii awal 3 xabo aad qaadan jirtay hadda 1 xabo qaado. haddii aad xabad qaadan jirtay jab qaado, saa tartiibta aad isaga joojisid daawada. balse hal mar waxaa ka imaan kara inaad daawada hal mar wada joojisid in adigii ay dhibaatooyin horle aad isku aragtid jirkaagii. maxaa isku cayilin karaa oo qofku isku cayilin karaa ama si aanan dhibaato lahayn? waxaa jira badan oo la isku cayiliyo oo dabiici ah. haddaba su-aashu waxay tahay maxaa isku cayilin karaa si dabiici ah?
يعني ما isku cayilin karaa dabiica qofka intuu isticmaal lahaa daawooyin yani khataro badan soo gaarsiin kara ama kaga imaan kara waxaa jira siyaabo kala duwan oo aad isu cayilin karto isticmaalka cunooyinka sida ukunta kalluunka digirta baradhada digaaga isticmaalka khudaarta cagaaran samee jimicsi badan si uu murqahaaga u koraan isku day in aad wax badan cunto tusaale ahaan maalintii inaad 6 jeer cunto mana ahan inaad cunto cunooyin culus waxa inaad cuntaa cuntooyin fudud sida baradho la shiilay doolsho lagu sameeyay ukun boorash la shiiday iyo caano badan waa muhiim inaad la xiriirtaa dhakhtar haddii aad maaragta u baahan tahay wax la tashi oo dheeraad ah oo ku saabsan xagga miisaan kordhinta ama haddii aad daneynaysid in si dhaqsi ah oo miisaankaaga aad u kordhisid muuqaalkii maanta intaas uu ka egyahay haddii wax su'aal aad ka qabtaan mawduucan ama muuqaalkan fadlan qaybta hoose igu reeb haddii aad ka heshay muuqaalkan like-kan uga caawisa oo dad badan u gaaro insha Allah waa inoo muuqaalada dambe ee soo socda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.